Wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo Calanka TV. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo dib u horgelinaya baarlamaanka si xilka looga xayoobiyo Rooble iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Farmaajo doonayo inuu magacaabo oo la ogaaday. Madaxweyne Farmaajo oo ku adkaystay inaan waxba laga bedeli karin heshiiskii 17 Sebtembar. ra'iisul wasaare Rooble oo xaalad xun wajahaya kadib khilaafkii isaga iyo Farmaajo. Qorshaha Mursal iyo Farmaajo oo go'aan halis ah ku ah ra'iisul wasaare Rooble maleegaya xilli uu Rooble weysan yahay meel uu aado iyo cid uu Farmaajo kala heshiiyo. Maxaa ka dhacaya xilligan gudaha magaalada Muqdisho? Maxaad kala socotaa ciidamada xalay lagu soo daadiyay magaalada Muqdisho daafaheeda ee aan la aqoon meel laga keenay iyo waxa ay damacsan yihiin? Ma dhaba in ciidamo fara badan la dhoobay wadooyinka laga soo gala magaalada Muqdisho? Muxuu madaxweyne Farmaajo ka damacsan yahay ciidamadaas? iyo calaacalka qaramada midoobay oo hawada isku shareeray kadib xiritaankii terminaalka airportka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. Qodobada iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena subaxnimo ku daawan doontaan. Fadlan daawada haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqatay channelkeena, subscribe oo furo gambarka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. Mahadsanid. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa qorsheynaya inuu dib u horgeliyo baarlamaankii 10aad sida ay wararku sheegayaan. Ujeedada boorka looga jafayo baarlamaanka oo aan muddo kulmin ayaa lagu sheegay inuu jiro qorshe la damacsan yahay in xilka looga qaado Rooble oo hadda ay hayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qorshaha xilka looga qaadayo Rooble ayaa waxaa daba socda qorshe kale oo la rabo in lagu magacaabo ra'iisul wasaare cusub si uu u sii wado howlaha doorashooyinka. Madaxweyne Farmaajo ayaa dib uga noqday ra'iisul wasaare Rooble kalsoonidii hogaaminta doorashooyinka iyo amniga kadib markii lagu eedeeyay inuu ku fashilmay inuu dalka doorasho ku gaarsiiyo waqtigii loogu talagalay iyo halkii uu ka dadajin lahaa doorashada uu ku mashquulay tacbashada hanti iyo inuu dhisto dhul ay leeyihiin ciidanka badda Soomaaliya. Sidaan warkii hore ku sheegnay, haddii ra'iisul wasaare Rooble xilka laga qaado waxaa jira qorshe laga doonayo in lagu maxkamadeeyo. Wuxuu noqonayaa mas'uulkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee darajadaas gaaray ee lagu maxkamadeeyo xatooyo xoolo dadweyne. Haddaba dagaalkaas ka sokow waxaa jira hardan ka dhexeeya labada mas'uul oo loogu jiro shirarka ay ku ballameen iyagoo kala haysta maamulo iyaga kala taabacsan, balse madaxweyne Farmaajo ayaa u eg inuu ku guuleystay shirkan la rabo in looga hadlo arrimaha doorashooyinka, maadaama ra'iisul wasaare Rooble uu ku guuldareystay inuu kasbado beesha caalamka. Maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Farmaajo uu ka xiray airportka qaybta terminaalka ah ee ka soo geli jireen reer galbeedka iyo Amisom, maadaama la sheegay in amniga dalka wax u dhimeen oo aan si fiican loo soo baarin. Ciidan ka mid ah kuwa Amisomna ay diideen in la baaro ama lagu soo diro ciidamada boolis ah. Rooble oo wasiirada qaar ku kalsoonaa waayay ayaa isu bedelay laba wasiir oo kala ah wasiirka cadaaladda iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. Rooble ayaa faray labada wasiir ee la isku bedelay inay sida ugu dhaqsiyaha badan xilka u kala wareegaan. Isku bedelidan ayaa ku soo aadaysa xilli dalka uu galay xaalad hubanti la'aan ah iyadoo cirka uu isku shareeray khilaafka u dhexeeya Rooble iyo madaxweyne Farmaajo. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wado dowladda Soomaaliya iyagoo madaxtooyada soo dhoobtay ciidamo fara badan, sidoo kalena xafiiska ra'iisul wasaaraha cadaadis ku saaraya inuusan banaanka uga bixin madaxtooyada si xabsi guri looga dhigo. Balse Rooble ayaa si caadi ah kulamadiisa ugu wata aaladda fogaan aragga ah ee Zoom meeting-ka. Dhanka kale, Villa Soomaaliya ayaa ciidamo xoog la soo dhoobtay dhammaan wadooyinka laga soo galo magaalada Muqdisho. Ciidamadan ayaana sida la sheegay ilaalinaya dhaqdhaqaaq ciidan oo ka bilowda gudaha magaalada Muqdisho inay ka hortagaan wixii damca inay gudaha soo galaan si aynan qalaaso uga geysan gudaha magaalada Muqdisho. Ciidamadan ayaa waxaa qayb ka ah ciidamada laga keenay dalka Eritrea ee aan dariska nahay ee tababarka adag ku soo qaatay iyo kuwa ku jira xeryaha ciidamada sida xarunta xisbiga iyo General Gordon. Ciidankan ayaa fariisin ka sameysay daafaha magaalada iyagoo wata hubka noocyadiisa kala duwan una diyaarsan in mar walba isdifaacaan haddii la soo weeraro. Ciidankan sida la sheegay ma baarayaan gawaarida, balse meel u dhow wadada ayay fariisimo ka sameysteen iyagoo tiindooyin iyo dhufaysyo ka qotay. Ciidamadan waxay u diyaarsan yihiin inay ilaaliyaan magaalada Muqdisho
haddiiba ay isku dayaan in mucaaradku uu markale ka geystay qalaaso sidii ay sameeyeen abriil sanadkii lasoo dhaafay. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in mucaaradku ay wadaan abaabul iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ay mar kale rabaan inay magaalada muqdisho ka bilaabaan dagaal, balse waxaa leeyahay meel ciidanka lasoo mariyo ayay weysan yihiin maadaama magaalada muqdisho lagu gadaamay ciidan awood leh oo wato hub culculus. dhanka kalena qaramada midoobay ayaa ka hadashay tribunaalka aadan cadde oo ay dowladda federaalka ka xirtay habeen ka hor. qaramada midoobay xafiiska ay ku leedahay dalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray xiridda mid ka mid ah tribunaalka garoonka aadan cadde oo ay isticmaali jireen hay'adaha qaramada midoobay. qoraalka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa u qornaa sida tan: codsi ka yimid dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay xirtay xaruntii ay ku shaqayn jirtay rakaabka ee Mifcon ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde laga bilaabo 24 Diseembar 2021. qaramada midoobay waxay Soomaaliya u shaqeysaa iyadoo si buuxda u ixtiraamaysa sharciga Soomaaliya, iyadoo la raacayo shuruudaha heshiiska howlgalka iyo heshiisyada kale ee khuseeya ay kala siixdeen hay'adaha qaramada midoobay, lacagaha iyo barnaamijyada, iyo sidoo kale axdiga qaramada midoobay iyo axdiga xuquuqda iyo xasaanadda ee qaramada midoobay. waxaan si dhib ah u qaadanaynaa walaac kasta oo ay dowladda federaalka ka muujin karto howlgallada qaramada midoobay waqti kasta, waxaana ka xunnahay in tilmaamahan xiritaanka si lama filaan ah loo soo saaray oo wadatashi yar laga sameeyey. waxaan aad uga xunnahay xiritaanka sida muuqata ay sabab u tahay eedeymo aan weli si faahfaahsan loogu soo bandhigin qaramada midoobay si loo ogolaado baaritaan. wadahadallo dheeraad ah oo arrintan ku saabsan ayaa lagu wadaa in maalmahan soo socda lala yeesho madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. qaramada midoobay ayaa weli waxaa ka go-an iskaashiga ay la leedahay Soomaaliya iyo inay sii wado caawinaadda dadkeeda inkastoo ay jiraan caqabado dhanka shaqada ah. warka qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya xilli madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble uu ka dhaxeeyo hardan dhanka doorashada ah, labada dhinacna ay doonayaan inay beesha caalamka soo kala jiidaan si kulamadooda mid ka mid ah uu shaqeeyo, balse madaxweyne Farmaajo oo dharbaaxo kale laba habeen ka hor dhuftay qaramada midoobay ayaa haddana sida cad waxay sameynayaan garabtaag cad oo u muujinayaan madaxweyne Farmaajo. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena, subscribe oo fara gambeelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid.